ciidamada badda Mareykanka ayaa gacanta ku soo dhigay markab hubgeeyay dalka Soomaaliya. Ciidamada badda Mareykanka ayaa gacanka Cumaan ku qabtay markab hadda ka hor hubgeeyay dalka Soomaaliya sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen. Warka ka soo baxay ciidamada badda ayaa lagu sheegay in markabka gantaalaha xambaara ee USS Cole uu markabkan ku qabtay meel u dhow biyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. Markabkan ayaa isticmaaliyay marinada inta badan ay adeegsadaan doonyaha iyo maraakiibta hubka u geeya kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen, waxaana saarnaa maadooyin kiimiko ah oo loo adeegsado in lagu farsameeyo walxaha qarxa. Markabkan ayaa sanadkii tagay waxaa sidoo kale ciidanka Mareykanku ay ku qabteen xeebaha dalka Soomaaliya iyadoo ay saarnaayeen hub fara badan, waxaana la sii daayay markii laga reebay hubka uu siday. Bayaanka ka soo baxay ciidanka badda Mareykanka ayaa intaa ku daray in markabka la qabtay 6 bishii Janaayo, waxaana saarnaa 5 qof oo u dhashay dalka Yemen. Qabashada markabkan iyo kiimikada halista ee saaran ayaa imaanaysa iyadoo sare u sii kacayso rabshadaha ka taagan dalka Yemen ee u dhaxeeya isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo iyo dagaalyahanada Xuutiyiinta. Ciidamada badda Mareykanka ayaa gacanta ku soo dhigay markab hubgeeyay dalka Soomaaliya. Ciidamada badda Mareykanka ayaa gacanka Cumaan ku qabtay markab hadda ka hor hubgeeyay dalka Soomaaliya sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen. Warka ka soo baxay ciidamada badda ayaa lagu sheegay in markabka gantaalaha xambaara ee USS Cole uu markabkan ku qabtay meel u dhow biyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. Markabkan ayaa isticmaaliyay marinada inta badan ay adeegsadaan doonyaha iyo maraakiibta hubka u geeya kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen, waxaana saarnaa maadooyin kiimiko ah oo loo adeegsado in lagu farsameeyo walxaha qarxa. Markabkan ayaa sanadkii tagay waxaa sidoo kale ciidanka Mareykanku ay ku qabteen xeebaha dalka Soomaaliya iyadoo ay saarnaayeen hub fara badan, waxaana la sii daayay markii laga reebay hubka uu siday. Bayaanka ka soo baxay ciidanka badda Mareykanka ayaa intaa ku daray in markabka la qabtay 6 bishii Janaayo, waxaana saarnaa 5 qof oo u dhashay dalka Yemen. Qabashada markabkan iyo kiimikada halista ee saaran ayaa imaanaysa iyadoo sare u sii kacayso rabshadaha ka taagan dalka Yemen ee u dhaxeeya isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo iyo dagaalyahanada Xuutiyiinta.